تنزانيا وقوانيسو شعب تنزانيان oo u jabsaday xarumaha booliska kuna labistay dharka ciidanka waxa la jaray isgaarsiinta bandow ayaa lagu soo rogay dalka Tanzania dalka Uganda oo la doorasho ayaa ka socoto Yoweri Kaguta Museveni oo muddo 39 sano madaxweyne ah ayaa mar kale madaxtinimada u taagan waliba wuxuu ballan qaadayaa in uu isbedel keeni doono xaaladda dalka Suudaan oo alow sahal ah 2,000 oo qof ayaa la dilay 48 saacadood gudahood hagaag aan ku bilaabay mudaharaadyada ayaa ka sii daraya magaalooyinka waaweyn ee Tanzania iyo taageerayaasha mucaaradka ay ku dalacayeen doorashada madaxtinimada iyo baarlamaanka ee dhawaan dhacday in ay tahay mid been abuur ah boqolaal dibadbaxayaal ah ayaa sidoo kale u gudbay dhulka Kenya iyagoo xiray wadooyinka jeexjeexaya boorarka madaxweyne Samia Suluhu Hassan booliska Kenya ayaa sheegay in 2 qof oo Kenyan ah ay dhinteen kadib markii ay ka carareen dagaalo ay la galeen booliska Tanzania ee xadka Namanga jombaangu imeenda vibaya dibadbaxayaashu waxay ku eedeeyeen dawladda in ay weeqayso dimuqraadiyadda maadaama hogaamiyaha ugu weyn mucaaradka Tundu Lissu uu xabsiga ku jiro maxkamad ku taalo Tanzania ayaa hogaamiyahaasi ku soo oogtay dacwad khiyaano qaran ah kadib markii lagu xiray isu soo bax dadweyne oo ku baaqay in haween lagu sameeyo doorashada musharaxiinta kale ee mucaaradkana laga reebay doorashada taasoo xoojinayso fursadaha Samia ee ah in ay ku guuleysato waxa la jiray isgaarsiinta bandow ayaana lagu soo rogay dalka xaajada waa akarintahay baabuuro iyo dukaamo la gubay iyo dad la laayay waxay ka mid yihiin kacaanka ka jira dalka Tanzania magaalada El Fasher ee dalka Suudaan in ka badan 2,000 oo qof ayaa lagu dilay 2 maalmood gudahood markii ciidamada taageerayaasha degdeg ah ee ay taageerayso imaaraadka ay weerareen magaalada iyagoo dilay dad rayid ah isla markaana burburiyay xaafadaha oo dhan ruuc milyan oo qof oo kala bar caruur ah ayaa ku xayiran go'doon iyagoo aan haysan cunto ama daawo xaalka Suudaan ayaa ah mid murugo iyo argagax wato dunidana ay indhaha ka haysato lama ogaan karo saacadaha soo socda Suudaan waxa ka dhici karo xaaladda ayaa aad u cakiran dhimashada iyo nolosha waa qofba nasiibkiis dalka Uganda oo lolo siyaasadeed ayaa ka socda doorashada waa sanadka soo socota ee 2026 madaxweyne Yoweri Kaguta Museveni maanta wuxuu ku sugan yahay degmada Kabarnamaido ee gobolka Teso halkaasi ayuu ka wadaa safarkiisa siyaasadeed ee doorashada soo socota Yoweri Museveni wuxuu ahaa madaxweynaha Uganda tan iyo Janaayo 2016 markii ciidamadiisa fallaagadu ay la wareegeen caasimadda Britannica wuxuu xukunka qabtay kadib markii uu hogaaminayay dagaal jabhadeyn ah wuxuuna xilka hayaa ilaa iyo maanta